marka la maqla haro waxa maskaxda ku soo dhacaya biyo buluug ama cagaar muuqda ay yeeshee meelo kala duwan oo dunida ka mid ah waxa ku yaala harooyin leh muuqaal gebi ahaanba ka duwan kan la yaqaan kuwaasoo biyahoodu isu bedelaan casaan mararka qaarkoodna u ekaada in dhiig lagu shubay oo kale inkastoo muuqaalkoodu cabsi abuuri karo haddana saynisku waxa uu leeyahay sharaxaad cad oo ku saabsan dhacdadan midabka casaanka ah ma aha mid biyuhu si dabiiciya u leeyihiin waxa sababa noolayaal aad u yaryar oo indhuhu aanay qaban karin sida algii iyo bakteeriya jecel biyaha milixda badan marka heerkulka hawadu sare u kaco biyuhu aad bay u cusboonaadaan noolayaashan ayaana soo saara midabo casaan ama orange dhow si ay iskaga difaacaan iftiinka xooggan ee qorraxda midabadaas ayaa ugu dambeyn biyaha oo dhan u ekaysiiya casaan dhacdadan ayaa inta badan ka dhacda harooyinka milixdu ku badan tahay halkaasoo noocyo badan oo kalluun iyo dhir ahi aanay ku noolaan karin deegaanadan adag waxaa si gaara ula qabsaday noolayaashan yaryar kuwaasoo door muhiima ka ciyaara isbeddelka muuqaalka harada mid ka mid a tusaalooyinka ugu caansan waa harada Lake Hillier ee dalka Australia oo caan ku ah biyaha casaanka ee muuqda sanadka oo dhan sidoo kale harada Lake Retba ee dalka Senegal ayaa marar badan isu beddesha casaan gaar ahaan xilliyada kulaylaha marka milixda biyuhu aad u badato inkastoo harooyinkan ay u muuqdaan kuwo aan caadi ahayn khubarada deegaanka ayaa sheegaya in isbeddelka midabku noqon karo tilmaamo muujinaya isbeddelada ku dhacaya deegaanka heerkulka hawada uumiga biyaha roobabka iyo heerka milixda ayaa dhammaantood saameyn ku leh muuqaalka harooyinka taasoo ka dhigaysa goob muhiim u ah cilmi baadhista cimilada iyo deegaanka sanadihii u dambeeyey harooyin badan oo dunida ku yaalayaa si kumeel gaara isu beddelay casaan arrin ay saynisaanadu la xidhiirinayaan kuleelka sii kordhaya iyo isbeddelka cimilada marka biyuhu yaraadaan milixduna korodho waxa sii bata noolayaasha soo saara midabka casaanka taasoo beddesha muuqaalka harada harooyinkan casaanka noqday waxayna xasuusinayaan in dabeecaddu mar walba leedahay waxyaabo ka yaab badan mala'awaalka waxay sidoo kale muujinayaan sida noolayaasha ugu yaryar dunidu ay awood ugu leeyihiin inay beddelaan muuqaalka deegaan dhan iyagoo sawir qurux badan u beddela meel ay dad badani u haystaan inay tahay biyo caadiya cabdicasiis Saciid Cilmi warbaahinta qaranka